madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa galabta soo gaadhay magaalada Berbera. Ugu horeyntiina madaxweynaha iyo wafdigaasi uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaano ka tirsan gobolka Saaxiil sida deegaanka Laasgeel, iyadoo halkaas ay si diiran ugu soo dhaweeyeen bulshooyinka deegaankaasi. madaxweynayaasha soo dhan waa weydiinay waxaan u baahanay biyana waa dhawiyno waa la helayaa riig baan u baahanay riig dhagax bay leedahay meesha mid dhagaxa jiriya biyo way jiifaan laakiin wax qodaa loo baahan yahay kaadub ha nooga dhigin waxyaabo badan baanu tabanaynaa annagu dawladda saldhigeedaanu nahay dawlad kasta saldhigeedaanu dawladda Soomaaliland saldhigeedaanu xididada iyo madaxweyne waxaan ku soo dhaweynaa degmada Laasgeel waa degmo aad u ilaalisan nabadgelyada waxa dumara hantida Soomaaliland oo dhanba marta dadka halkan degan waa dad nabadgelyada jecel waa dad dawladnimada jecel hal walaxa jirta madaxweyne oo ka cabanay inta badan inaan lagu miidiyaa ka hadlayo waa maqashay dadka iyagu meeshani dooxna waa namaraa hasha kudna waa dilay waxna waa weeliyaa dooxna waa namaraa biyana ma hayno waa problemka quraada dacalbu ka taagan halka dhibtaasi waxay lagu samaysay laba warshadood oo khayr qaba oo islaahay dadku waxbay ka faa'iidayaan laakiin la duldhigay dooxii ayaa biyihii laga sameeyey in badan baan biyaha ka shaqaynaynay dhowr jeer baa la tijaabiyey way noo suuro geli weyday imika wasiirkaagii ugu dambeeyey cali mareexaan waanu kala hadalnay anigii xildhibaanka golaha deegaankii wasiirkii samson baa u tagnay xaaladda dacalbuuq waan u sheegnay wuxuu waxbaan idinkala qabanaya madaxweyne amarkaagaanu kaa sugayna haddaan reer dacalbuuq dhacay inaad biyaha maanta noo amarto odayaashii iyo madaxdii degmadu codsiyadii ay soo jeediyeen wax saddex waa biyo waa caafimaad iyo tacliim saddexdaba waa loo baahan yahay hawsha adduunyadu waa tiro sagaalaad oo ma tognoogno kolba tallaabaynu qaadaynaa hawlaha iyo farintaha culus waan qaadanaynaa biyuhuna waa koy kuwa kale waa laba saddex mas-uuliyiinta gobolka Saaxiil maamulka dawladda hoose Berbera iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigu hogaaminayo. Ujeedka safarka madaxweynaha ayaa ku aadan in maalinta Sabtida ah uu xadhiga ka jiri doono madaarka caalamiga ee Berbera. Waa Xamse Jaamacire, telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.